agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo sidoo kale hay'adaha kala shaqeeya mashruuca GBLG ama Joy Program Local Government iyo mas'uuliyiin ka socotay degmada Berbera iyo gobolka Saaxil ayaa maanta kormeer ku soo maray mashaariicda laga hirgeliyay mashruucaasi ay ku midoobeen hay'adaha dawladda dhexe iyo dawladaha hoose ee dalku waxaana ay kormeer ay ku soo sameeyeen goobo caafimaad iyo goobo waxbarasho oo mashruucaasi laga hirgeliyay kuwa kalena lagu maamulo waxay sidoo kale ay kormeer ku sameeyeen mas'uuliyiintaasi maamul daadejinta lagu sameeyay mashruucaasi iyo sida ay dawladda hoose ee Berbera ay u gaarsiisay qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaasina ay uga faa'iideysay adeegyada aasaasiga ah ee ay bulshadu u baahan yihiin gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka waxa halkaasi warbixin ka siiyay mas'uuliyiintaasi xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera iyo sidoo kale isduwayaasha wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka waxaan dhamaantiin ku leenahay soo dhawaada magaalada Berbera ilaahay baa mahadle dhamaantiin iskeen fahamsiiyay halka waxaynu marayaan waxaan filayaa inaan ku qanacsanay dhamaantiin wanaagsan tahay laakiin si aynu geedigana hore ugu sii wadno dawladda hoose ee magaalada Berbera waxa ka go'an iyo xildhibaanada golaha deegaanka inay si fiican idin la shaqeeyaan inaanu laba laamno shaqadaanu hayno waliba waxaan noo qorshaysan maadaama aad wadadii iyo systemkii maamulka aynu iswada tusnay maxay tahay inaanu mas'uuliyadda qaadano si buuxda waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka oo runtii in badan oo kamida maxay tahay shaqadii heer degmo u soo dhaadhiciyay anagoo jecel inta yar hadhay laabana inay iska soo daadajiyaan hadoo la yiraahdo intaas kadibna mas'uuliyiin ka socotay xafiiska championka iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee kala shaqeeya xukuumadda Soomaaliland mashruuca GBLG oo halkaasi ka hadlaya sheegay inay magaalada Berbera ay ka mid tahay magaalooyinka xagga hore kaga jira ka faa'iideysiga mashruucaasi GBLG agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi hadalka isu dawamaray ayaa ka warramay mashruucan iyo sidoo looga faa'iideystay gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo sidoo kale caafimaadka waxay ugu mahadnaqeen dawladda hoose ee Berbera sida mashruucaasi u gaarsiisay goobihii loogu talagalay maamul daadejinta waxbarashada runtii marka loo eego sectorska kale waa ugu weyn runtii si loogu talagalay hirgasho waxaan ballan qaadanaa inta ka badan inaan sii daadejino oo dhammaan awoodda waxbarashada ee degmada aan dawladda hoose si toos ugu wareejino marka haday tahay shaqaalaha haday tahay service-ka kale la socdo xagga operationka iyo haday nooc kasta marka adeeg waxbarashada tahay dawladda hoose degmada Berbera waxaan ku amaanaynaa runtii waxay u yihiin marka catalyst waxa qofkii inuu hormuud noqdo waxa ka sii muhiimsan inuu dadka kale marka cariyo oo marka dhiirigeliyo marka aad iyo aad degmooyinkii kale isbedel weyn baa ka muuqda intii Berberi marka ay hoggaanka qabatay xagga maamul daadejinta marka credit-kana Berbera leh wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay si dhow ula shaqeysaa dawladaha hoose waxay diyaar u tahay inay kala shaqeyso adeegyada maamul daadejinta diyaar baan u nahay inaanu annaga oo wada jirna aanu soo daadejino maamulkii ka wada shaqeynana marka xataa la daadajiyo oo aan lagaga harin dawladyo waxaan jecelahay in aan cadeeyo inta aan aragnay meelaha uu ka socdo maamul daadejintu iyo degmooyinka aanu ka socon in service-ku kala duwan yahay in waxyaalo badan la soo kordhiyay waxay la tahay marka la iska kaashado adeegyadaas fidintooda dhinacii dawladda hoose dhinacii wasaaradihii dawladda dhexe iyo mucaawanadii iyo barnaamijyadii horumarinta aynu ka helanay caalamka markay saa isula jaan qaadaan horumarkoodu waa wax muuqda oo la arkayo sida ay u horumarinayaan sida iskuuladii u kordhayaan sida ardadii u kordhaso sida xarumihii caafimaadku u kordhayaan sida adeegyadii caafimaadka kor loogu qaadayo bulsho waxna baranaysa caafimaadna haysata ayaa horumarkoodu tayo fiican yeelan karaa intaasi kadib mas'uuliyiinta oo wada socda ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada xanaanooyinka laga hirgeliyay mashruucaasi imikana ay gacanta ku hayso dawladda hoose ee Berberi mas'uuliyiinta dawladda hoose iyo mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa halkaasi warbixino ka siinayay intii kormeerka lagu marayay waxaana uu mashruucani uu qayb ka ahaa kormeerada kala duwan ee sanad walba la eego waxyaabaha mashruucaasi uu qabtay iyo sida looga faa'iideysan doono wajiyadiisa dambe Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera